inta fasaadka intaan soo dhawaysan lahayn waxaan gelaynaa haddii alla yiraahdo inaan hubkanaga ku darsanno maanta intiina socotay haddii ruux waliba hubkiisii uu sito qof la hadli lahaa ma jiro haddii ummaddu bahal noqotana bahalnimada waxaa la isaga celiyaa qalab baa la isaga celiyaa maahane hadal ma qaato wax munaasib ah ma qaato marka taasoo kale celin u noqonaysa waxaan rabaa inaan idin iraahdo caawa laga bilaabo waxaan hub leenahay waa raadsanaynaa waa soo qaadanaynaa waana wadanaynaa ruux muslim ah ku dhibi mayno dawlad ku dhibi mayno dad kale fog ku dhibi mayno laakiin ruuxii ahlul fasaad ah waa ku dhibaynaa saakay markii halkaan aan waxaynaynay magaaladani weligeed waa ka caagareedo ma aysan kaba dhicin weligeed saakay qarax baa ka dhexdhacay qarax baa saakay laga ridi macnaha waxaad garanaysaa gacanta meesha in loo geliyay shabaab ayaad garanaysaa ruuxa noocaas noqon kara oo intaas inta arka xataa xishoon waayo aan oranayn war dadkaanoon cid ay wax ka qabaan la arag gaadiid annaga aan naga rabin xoola aan naga rabin gaadiidkoodii wata annagu waxaan u weerarno lama arko aan ruux yiraahda lagu arag macnaheedu waxa weeye waxa qalbigooda ku jira ruux cadow kula ah weeye hadda qalbigana waxa ku jira cid sooma bixin karta ilaahay baa og qalbigiina iimaankii ku jiray ilaahay waxaan weydiisanaynaa mid ziyaada Allah ka dhigo intaad soo marteen ajrigeedii waxaan idinka dhamaan Allah idinka dhigo